nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa war salaantiina kama gaare Soomaaliya dhageysta qowlkii ilaah iyo sharca lagu qaboobaa wax kale oo la qoraansada qurux ma yeeshaan quraafaadka iyo beenta waa lagu qasaaraa khilaafkana quraanka ka digay qoorta noo suran iska quba qarmuunka iyo xiqdiga way su qarisaanay war waa markii ugu horeysay oo 7 sano kadib khilaaf madaxda sare dhaxmara ay kaligood ka heshiiyaan soo laguma dhihin war ninkan qaraxyadii dhacay ayuu kaala hadlay iyo qasaariyi ay geysteen madaxda aqalka sare ayaana ka hadashay haddii tirada la qarin jirayna runta laga sheegay maanta 21 qofood ayaa dhimatay bay yidhaahdeen 60 ka badanna waa dhaawac war hadal wax ma tare wixii dhig loo kaca ma dhehen aryaa wixii dhig loo kaca meeqa sanaan dhehayna haddii la yeelaayo nimankan dhawaaqasan dhig wal dhegaasiyo inay dhaahay wal aragayaan meel dhammaag rahmaanka ilaahayno dhahsiiba goladuna dhibaayaan hadduu jiray cadow qablihi qasaarana geysan jiray waxaa yimid nacab qashiin qof raba dilitaan qof kale qudhiisana raaciyo maatada qarxiyaa bedelay warnimayo qaraxyadii ugu dambeeyey saamayn xanuun badan bay reebeen qaraxii soobe waxaa ku dhintay 3 qof oo waalidiintoodii qaraxii shaam oo ku dhinteen qaraxii naasablood waxaa ku dhintay dictor shiid oo shaam oo ku dhintay wiilkiisii oo dictor kala ah qaraxii u dambeeyey hotel saxafina waxaa ku dhintay in Cabdirashiid Ilqayte oo qarax horo isla saxafi ka dhacay aabihii ku dhintay qaraxii shalana waxaa ku dhintay Faysal Samow oo walaalkii uu ku dhintay qaraxii naasablood walaalkiis kale iyo aabihiina ku dhinteen beledweyne qarax ka dhacay dad badan oo sidaas abaana jira in yar oo naqaanay baan idin sheegay ama maqlay waa dhibane qarax Soomaalida inta badan haddana ma diirayno oo qaar ka haray way iska qosleeyaan aryaadaha qaraxyadaan cudurrada ay reebeen oo cunka aan balla yaaban dadkii oo dhan wees hoolayaan ay isxogaayeen xagagaf sun miyay ku soo dareen sun ha loo qasay war haadaha wixii maqabyaalada xitaa qaraxyada abayaashoodii wiilashii isku xogxageen lagu dilayaa war almiina hadiiba aana la dhaafin qaraxyada sawtii la yiri 4.5 ha laga dhigo deegaamada loo qaybiyo qarax la sheego toowanaysa to kale alla ma noogu daro aamiin dhah aamiin aan runtaan idin sheegay balaayo hadiin laga hirin sidaan lay u soconaysaa ogaada arro adi ma ka dambeeyeen allahay ka allah warnimayo waxaan idin hayaa halku dhigyadii laga diiwaan galiyay sanadkan dhamaanaya ee iga dhageysta darbi ayaan ka boodnay siyaasiyiinta xanaaqsan madaxweyne albaabka iga fur dastuurkii dalka waa la haday 30 milyan haysta oo aan aabihi ka dhaxlin xan fareesh ayaan idin hayaa 1991 ayaa loo laabanayaa magaalo guuraysa WhatsApp ayaan ku ansixinay 28 sano kadib markii uu horeysay dadka bidaarta leh waa in naafada qaranka lagu daraa horaa loo soconayaa qaran dumis mooshin musuq maasuq wasiiro loo eedeeyay xatooyo dadweyne waan qaraabanaynaa sanad gudihiis 4 wasiir oo hal wasaarad isku bedelay kala wareeg madaxtooyadu dadka kama dhaxayso iyo ugu dambeyn waa markii uu horeysay ee musharax madaxweyne oo mashaariic xabsiga ku cabo war ilaa hadda wax qabadka dawladda noo sheegtay aryaadaha hal waxaan dhageystay gabar xildhibaanad oo ka soo qaxday Jubbaland waxay tiri xildhibaano kalena way iga soo horeeyeen anigana waa la soo raacday xilkaygana waa la qaatay waxayna tiri Jubbaland hal nina macallin dugsi ka ah inta kalena waa ardadi wax ka maqlaysay war gabadha aad sheegaysaa nidaamka iyo kala dambeynta midha ka soo horjeeday macallimiin badan haday u baahi qabtay galmudug tag warnimaha gudoomiyaha gobolka Nugaal waxa uu duqa magaalada Garowe ku eedeeyay inuu dawladda Soomaaliya xiriir la leeyahay waxaana uu yiri waxaan uga shaki qabnaa inuu yahay nabad iyo nolol waana in xilka laga qaado war waxa la yaaba goormay nabad iyo nolol dambiyada la isku eedeeyo ka mid noqotay wartan la iska eedeeyay tiilifadaay meetan boorka number 4 dhatunka gorongu walaa u naxariistay wariyaha Awil Daahir shalay Soomaalida qarax ku dhimatay ka mid ka ahaa madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray inta ka nool tacsiib ay u direen Ali Maadi Maxamed Cabdi Qaasim Salaad Sheekh Shariif Sheekh Ahmed
xasan sheekh maxamuud maxaa cabdullaahi farmaajo shantaasiba tacsibay u direen low war kalimiyuu falayaniyow war muuse bixiba mala sheegay arshib nagadhe ma asagaa madaxweyne hirshabeellaba sheegay war mustafa cagjarba ma sheegin lug ilama ilaahaysiinka gooye maseen ara lafta garaan oo madawiinnimadiis fareesh abbe ino taasiyoy makadarnerese wala wadalan yaw war madaxweyne xaafba ma adnaan ku darin bowe cabdiweli gaasba maydinkaa tacsida dadka diray wuu ku jiray nagu yidhi war waad waalantiin madaxweyne asiis sheekh axmed uxul maydinkaa ugu soo daray yaa madaxweyne badanaa waxaa ma maran yihiin alqaaracadka maa laga maray war waa markii u horraysay ee manchester united ay hal kulan 5 gool dhalisa muddo kadib niman yaho war guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka amniga mister tuulax wuxuu yidhi alxamdulilah ilaahay qarixii wuu naga badbaadiyey 7 qof baa iiga dhimatay tuulax wuxuu yidhi qaruxu inuu maha yimaado habaxsanaantaan yaa keentay xaal laga rabaa rumow sheegay war barnaamijka isxilqaana tiyaatarka wasaaradda dastuurka maanta ka shaqaynaysay marka waxaa caddaatay isxilqaanka dhismaha ee dawladda inaan isxilqaanka isqarxiska shabaabka hor istaagi karin war eleemasaarka sin sheegasaa madawiinaga lafta garan ama la eleemasaarohay war adeer Soomaaliland Mustafa Cagjar baa aqoonsaday maxay idinka baahantay isxilqaankiinba ma doonaysay war qarxi shalay ka dhacay daljirka daahson inta boor meesha surneed waa baaba'een kii madaxweynaha bas ayaa ka haray waxay caddaynaysaa taas madaxweynuhu inuusan qarax iyo mooshin midna kursigiisa uga kacayn armaye waxay caddaynaysaa madaxweynuhu inuu gees yahay uusan shabaabka kudaynin war taas waxay caddaynaysaa madaxweynaha inas awliya yahay war madawiinaga maraykan owli iyonay maraykanna maynaska jira iska gali war adeerow taas waxay caddaynaysaa inuu madaxweynuhu inuu yahay kaligii taliye war taasi waxay caddaynaysaa madaxweynuhu inuu bullad buruuf ku dhex jiro waryaa bulud buruusna laguma badbaado ma laguma badlama celis arya madaxweynaha kaligii taliya xaad u leedahay